adwa aragteen cudurkii waa socdaa baabuurka aan break galahayni habda meel cusub sii gaaraya lambaradii waa sii badanayaan maalinta ka dambaysan nambar cusub ayaan sii qoraynaa dhalinyaraduna wali waa sideedii inkastoo aan dareensanahay maanta waa farxsanahay waxaan ku farxsanahay in maanta wacyigelinta xoog galaho socota ay dhalinyaradu aad iyo aad uga qayb qaadanayaan oo meel walba ay taagan yihiin oo shaqada wax uga fulinayaan arrinkaas marka maxay noo sahlaysaa arrinkaas waxay noo sahlaysaa inaan saadaalino in suurtagal ay tahay cudurku inuu naga yaraado ayay arrinkaas noo sahlaysaa hadda marka waajibka noocaas oo kala waxay noqonaysaa inaanu aanu fulino oo soo fulinayna waxaan fulinaynaa nafteennana waa badbaadinaynaa oo calaamadii maskiga la ka rabay oo aan ku tilmaanay inay tahay badbaadadeena iyo quruxdeena inay tahay aan ku tilmaanay waxaan kaloo sameynaynaa inaanu kala durugno adiga xataa hadaa shaqaysanaysid ninka kale waxa tiraa saaxiibow adiguna dhalinyarada ana dhalinyaranahay aan labadeena isbadbaadino waxa kaloo la idinka rabaa maxay tahay waa inaad waalidkii difaacdaan walaalayaal isbitaalka waxa jiifa dad waayeela oo aad u xanuunsan oo runta la soo daahashay marka hore oo aad iyo aad ayagu liita la keenay isbitaalkii dadaalka badanna waa loo qabtaa marka waxa la idinka rabaa in waalidka badbaadisaan waalidkana waxaan ka codsanayaa inay dhageystaan tilmaamaha fiican takhaatiirta ay u sheegayaan wacyigelinta inay dhagahooda u furaan inay naftooda ayaguna badbaadisaan oo ku badbaadisaan inay raacaan dhalinyarada iyo jacaylka badan waa ogahay dhalinyaradu waa ubaxaaga weeye qurrata caynin lii walakum waa ogahay laakiin haddana waxay marar gobolkood khatar jirtay waa in khatarta laga fogaado waa garan karaa in dhaqan in la bedela ay dhib tahay waa garan karaa in ay qaadanayso waqti dheer laakiin haddaanan wax isku dayin waanan dadaal badan aanna muujin annaga dhan waxaan ugu dhacayaa dhibaato badan ay soo gaaraysa taas waa iga mid kale waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo isbitaal Martini walaal saad ogeydeen wuxuu ahaa bilow buu ahaa maalmuhu bilowga ahaa xaaladiisa waxa mana qof walba ka dharagsan yahay maantana meesha uu marayo waa world class oo aad iyo aad ayuu u fiican yahay maanta kalsoonida marka hadda timidi waa kalsooni aan ku imaan sahal ku imaan dhidid badan iyo waqti badan iyo shaqo badan ay ku timid waxay ku timid dadaal habeen iyo maalin iyadoo loo soo jeedo in isbitaalkaas wax iska bedelaan maantana isbitaalka aad iyo aad wax iskaga bedeleen kalsoonida dadkuna waa soo laabatay anigu waxaan leeyahay maanta xataa bukaan socda loo sameeyay dadkii ka faa'iideysta cudurka soo aqabtid uga faa'iideysan kartaa midka covid kaliya maahan cudurka soo aqabtid maanta uga faa'iideysan kartaa dhaqaatiir ku joogtaa jira waxaana fiican cudurku markuu bilowga kugu yahay inaad tagtid meesha tagaleed adoo oxygenkaagu uu 60 ka hooseeyo sakaraada inaad tagtid waa laga fiican yahay dadka guryaha lagu hayo oo guryaha isku celcelinaya kalsooni ha baxshaan wax laga hadlaynaa male naftoodii way wax lagu dadaalaya ha soo baxaan dhaqanka ah haddaan dadkaygu raacin dadkayga ila joogin mid adu aadan dhalin oo aadan ku dhibaatoon oo aad korinayso ku dhibaatoon aad diyaar waxa ku yahay kii aad dhashay intuu ku qaban lahaa inuu ku qabto agtaada joogo ka faa'iideysta dhaqdhaqaaq badan baa halka ka jira oo wanaagaha ka jira fadlan oo masala fadlan kalsoonideena keena oo ka faa'iideysta waxaan rajaynaynaa sidaas oo kale oo Martini dhulka looga soo qaaday in isbitaalada goboladana sidaas oo kale looga soo qaado oo iyaguna ay goboladuna ay dadaal muujiyaan Martini markii dhulka laga soo qaadayay ma ahan wax ay dawladda keenta kaliya shacabka ka qayb qaatay ganacsatada ka qayb qaadatay runtii waxay tahay waa la isku tagay awoodda la isku geeyay hadda marka waxaan rajaynayaa cadawgan nagu soo duulay 10 jeer ku celinay midnimo u baahan yahay in ganacsatada iyo ururada bulshada iyo culimada iyo takhaatiirta meel walba ay joogaan inay iskugu tagaan waa malayn kartaan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed maanta meel walba jooga waana diyaar u yahay inay ka qayb qaataan hadda waxa la idinka rabaa shacabku inay idinku dadaalka muujisaan mid kale wacyigelinta socota wacyigelinta waa in ayadana dhalinyaradu ay hogaamiso gobolada inay hogaamiso way dhalinyaradu waa inay noqdaan maanta hormuudka maadaama mustaqbalkooda ay tahay wadankan waa mustaqbalkii ayagu ay lahayn waa meesha bari madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir iyo generaal iyo wax walba ay ka noqon lahaayeen hadda inaad beertaada sii falatid oo beertaada aad dhowrtid cadawga ka celisid waxa umaleynaa waa waajib wada saaran dhamaanteena aan marka badbaadino dhalinyaraduna hay badbaadiso hala badbaadisho waalidka yaana noqon anaga dhami kuwa anagoon iska warqabin
dambiyo dil ah oo kala geysanayo waalidkeena uma dul qaadan karo walaalayaal waxaan rabaa maanta inaan idin sheego difaaca jirku hadba stage buu maraa stage-ku uu maraa waxay tahay dhalinyarada marka la yahay marka ugu fiican oo difaaca jirkuna uu fiican yahay weeye haddii laakiin da ay timaado waa sida qofka da'dahay dhaqaaqiisa iyo socodkiisa iyo cunto cunidiisa iyo fikirkiisa iyo xusuustiisa iyo sida u sii yaraanayso ayuu asna difaaca jirku la yaraa macnaha asaga laftigiisu da'dii baa gaaraysa marka saas daraaddeed dhalinyaradii iyadoo xooga badneed oo dhaqdhaqaaqa badneed oo difaacooda u cirka jiray lama barar dhigi karo dadka waayeelka ahaa oo da'du ay heshay oo difaacoodu yaraaday waa in marka taxadir laga sameeyo halkaas inaysan dhicin waxaan idin sheegay qiyaasta inaan dadkeena badan aan haddii qiyaasta mathematical modelinka maanta cudurkan lagu qiyaasayo Soomaaliya lagu qiyaaso haddii idin sheego dhigaha idin xanuunayo waa yaabaysaa laakiin mar doonaa inaan sheego waxaan rabaa marka inaan been ka dhigno mathematical modelinka socda inaan been ka dhigno oo seen baan uga dhigaynaa inaanu dhammaan wixii wacyigelinta la socday oo wacyigelinta ay tilmaamaysa aan dhammaanteed haddaan fulino beenan ka leenahay kaasi asoo wuxuu ku salaysan yahay Soomaaliya oo kala dadka kala durkayn qufciyo meel walba iska socda baabuurtiyo iska socota suuqiyo dadka dhan ku wada jiraan dhalinyaradii maaskarada aan la qaadanin gacmihii oo aan la iska dhaq waxaas ku salaysan yahay aan been ka dhigno bilaa caleek aan been ka dhigno oo aan u istaagno intaan hirgelino aan mathematical modeling-ka niraano no you are wrong khaladaas samaysay Soomaalidu saas maahan dhaqanka wanaagsan ee cudurkan la socon karana aan qaadano oo aan hirgelino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh